oo ay ugu dambeyn faa'iidooyinka buuggan aad qortay yuu u leeyahay ma dhalinyarada mise qeybaha kala duwan ee bulshada fariintaad ugu dambeysa aad dirayso horta dayataas ciidan ka soo hadlay dhowr qolo la hadlaya saddex qolo qolada koowaad waa dhalinyarada gurdoonka wiilka gabdhaha qolada ugu soo horeeyaan waxaan u sheegayaa inay ka faa'iideystaan ugu baaqi lahaa qolada labaadna waa dhalinyarada gurdoonka waalidiintoodii oo hooyooyinkooda aabyaashooda qof weyn markuu arko dhisidda qoyska dhisidda qoys waa kornaan gudbay dhalinyaro taala hawshaan ay leeyihiin laakiin يعني دنيادي بوق وات سجال وحات 8 chapter واي chapter سجالات وحالها بارنتس رول اون بيلدينج فاميلي دورك والد ديسيد قويس ما عتب كاس كلمه كان انفعايا يعني عتبيده دن marka soo akhrisno khaasatan cutubka labaad oo kan ugu dheer oo shaqaansi ah oo 98 page iyo cutubka saddexaad oo kan ku soo xigay xagga dherka oo jacayl ah oo 67 page marka si fiican akhrisid gabadhaadi iyo wiilkaaga wax badan ka fahmay si u dhaqmayaan si waxay rabaan sida wax ka qalcan wax u toosan waxa u toosin lahayd waxa ku waxeen lahayd wax badan adna waxa ka ogtahay dabcan waxa ka ogtahay wax kala ku sii darsamaayo oo maxay buugu waa juhdi ilaa 5 sano socday oo yani just qof hata ana qof ahay maxay ii sheegi kartaa dad tas ilaahay arkaan marka ma adag aqal badan ma adag wax waa yani buug horta ciwaanadiis tusmada way dheertay 23 page waay oo buug waa asaga balaaran inta tusmada fiirisid horta wax ma ka anfacaan wax ma ka qararsan kartaa mase waqti ka dhumina buug 23 page ku kala sheegi kara inaan wax ka koraysan kara adoo u galin 260 page inta ka hartay adoon u galin marka maxay qoladaas waalidiinta ay ka soo tirtirsiinaa qolada saddexaadna gol makers dawladda war yani waa sax amniga wax walba u muhiimsan laakiin maxay qoyskiina waa muhiim wasaaradii noo sameeyeen oo qoyskan oo ku mahadsantiin inay laakiin shaqo badan qabataan ka rabnaa door culus u yaal guddiga arrimaha bulshada baarlamaankana shaqo culus dhinacaas qoyska uga yaal buuggan policies oo soo recommend gareynaa kamid in la sameeyo family court ama maxkamad qoys aydan u baahanahay wax badan xalad waxyaalaha xalad uu sheegaya buuggan oo hadda taagan maxay marka siyaasiyiintuna ayakuna ha iibsadaan buuggan hana akhristaan guud ahaan dadka oo dhan buuggan waxay ka heli karaan dhalinyaro waalid siyaasi guud ahaan waxay ka heli karaan Soomar Somali online market oo la soo kaabiyo Soomar oo online shopping ama e-commerce oo telefonkaaga mobile application oo telefonkaaga ka dhex gelin karto xarisid ah buugyo softi maahan asoo soft copy meeysid hard copy gan caadiga marka ka dhex iibsato lacagta ka dhiibtid EVC aan ku galan kartaa ku iibsatid ayaa lagu keenaya meesha joogtid delivery oo free delivery marka maxay Soomar qofkii aan soo aadi karin Soomar ka iibsan kara qofkii baar wax yarax print iman karana meesha soo ka helaya bookshelfyada kale qaarkoodna inaan geeyo waa ku tala jiraa laakiin weli yarax print bisu yaala